doontaa. Runtii buug ka mid ah buugaagta aad ka iso jiitay waxaa la yiraahdaa buuggan waxaa la yiraahdaa Saaxiibo Kasbo ama fanka la dhaqanka dadka. Si kale haddii aan u dhigan waxaa la yiraahdaa How to Win Friends Influence People. Sidee lagu guuleystaa saaxiibada ama sidee saaxiibo loo kasbadaa? Dad badan waxaa laga yaabaa in siyaabo kala duwan arrinta u fasirtaan. Laakiin waxaa la dhahaa qofka bini'aadanka ah saaxiibo ma u baahan yahay? Haa, qofku saaxiibo uu u baahan yahay. Qof wuxuu ku leeyahay aniga keligii socod baan. Kaliya ma socon kartid. Dadka shaqaad kaala dhaxaysa, nolol baa kaala dhaxaysa inaad wax ku dirsataa u baahan tahay. Sidaa daraaddeed kaliya inaad socod sax maaha. Saaxiibo waa inaad yeelataa. Sidee ayaa saaxiibo loo kasbadaa? Buuggan magaciisa waxaa la yiraahdaa Saaxiibo Kasbo. Waxaana qoray runtii oo turjumay af Soomaalina ka dhigay nin lagu magacaabo Qareen Cabdiraxmaan Xuseen Abu Xamsa. Asalkiisa horena waxaa Dale Carnage nin la dhahaa ayaa iska lahaa. Marka buugga waxaa la yiraahdaa Saaxiibo Kasbo. Laakiin Saaxiibo Kasbo inta aad waqti isaga bixinba ma kuu soo koobo waxa ugu muhiimsan. Aniga marnaba ma dhahayn buuggan Saaxiibo Kasbo, laakiin waxaan dhihi lahaa furaha dahabiga ah ee qulubta aadanaha. Magacaas ayaan u bixin lahaa. Waxaan u bixin lahaa runtii furaha dahabiga ah ee qulubta aadanaha. Guusha nolosha ha ahaato mid shaqo, mid ganacsi iyo mid bulsho waxay inta badanba ku xiran tahay fanka xiriirka aadanaha. Buuggan Dale Carnage-na wuxuu noo iftiiminayaa in isbeddelka ugu weyn uu ka bilowdo qaabka aan ula macaamilno dareenka bini'aadanka. Carnage-na waxa uu na siiyey in dadku ay yihiin makhluuq ku dhaqma shucuur, dareen iyo rabitaan si loo qiimeeyo, halkii ay ka ahaan lahaayeen kuwo aqliga iyo loojiga ku socda. Marka dadku badanaa waxay jecel yihiin shucuurta iyo dareenka, taasna waa inaad fahantaa. Markaad fahanto xaqiiqdaas, adduunka oo dhan waa uu isbedeli doonaa adiga dartaa. Farsamada koowaad ama sirta koowaad ee buuggan ku jirta waa maareynta dadka. Wejiga koowaad ee buuggan waxa uu si buuxda u muujinayaa in laga fogaado naqdinta iyo dhaleeceynta iyo eedeynta iyo cabashada. Inta badan saaxiibada waxay kaaga tagi doonaan dhaleeceynta, naqdinta iyo cabashada. Jooji cabashada. Maanta laga bilaabo iska jooji. Waa mid ka mid ah waxyaabaha aad ku waayi kartid saaxiibo kuu muhiim ahaa. Sababta uu arrintaas u leeyahayna sidoo kale cambaareynta waxay dishaa qofka niyadiisa. Waxayna la mid tahay waxyaabaha saaxiibada lagu lumiyo. Marka qofka mar walba waxay gelinaysaa isdifaac iyo inuu marmarsiyo raadiyo. Marka waa inaad ka fogaataa naqdinta, eedeynta, cabashada iyo cambaareynta joogtada ah. Halkii aad taa samayn lahaydna waxaad ka qiimo badan in la baaro sababta qofka waxaan uu sameeyey, in la siiyo ammaan daacad ah oo qalbiga ka soo go'day oo aan ahayn mid munaafiqnimo ah. Bini'aadanka oo dhanba wuxuu u ooman yahay inuu dareemo inuu muhiim yahay. Marka qofku haddii aad ammaanto oo si dhab ah wax uu sameeyey aad ku ammaanto, kelmaddaas weligiis ma hilmaami doono. Wuxuuna noqon doonaa saaxiibkaaga koowaad. Sidoo kalena saameynta ugu weyn ee dadka lagu yeeshaa waxay tahay in la raaco meesha iyagu ay wax ka rabaan. Qofku sida wax u rabo waa inaad ugu raacdaa inta badan, iyadoo lagu dhiirigelinayo baahida dhabta ah ee ka dhalata gudahooda halkii laga ogaan lahaa taada. Haddii adigii halkii cabashada iyo eedeynta dhaleeceynta qofkan aad u soo jeedin lahayd, waa inaad raadisaa qofkan maxaa dhab ah oo uu dareemayo, uu qalbiga ka dareemaya. Sirta labaad ee buuggan ku jirta haddii ay niisoo koobo waa sida aad u noqon lahayd qof durbadiiba la jeclaado. 6 dariiq ee lagugu jeclaa karo. Adiga sidee u noqon kartaa maadaama saaxiibada qof ay mar walba jecel yihiin oo muhiim oo ay soo raadiyaan. Si aad u noqoto qof durbadiiba la jeclaado, sirta ugu weyn ee buuggan uu sheegayo waa inaad si daacad ah u danayso dadka kale. Sababtoo ah waxaad 2 bilood gudahood ku heli kartaa saaxiibo ka badan kuwii aad 2 sano gudahood aad ku heli lahayd. Haddii aad isku daydo inaad dadka kale ka dhigto kuwa adiga ku xiiseeya, dhoola caddayntaada fudud, wejigaaga ay ka muuqato waxay furo u tahay in qofka laga akhrisan karo naxariis iyo soo dhoweyn. Marka qodobkan ugu weyn ee sirta labaad waxa waayo inaad mar walba noqotid qof naxariis badan oo furfuran oo farxad dadka geliya. Dadku waa inaad saaxiibada waa inaad farxad geli kartaa. Mid ka mid ah furayaasha ugu awoodda badan waa isticmaalka magaca qofka. Tusaale, qofka marka aad la kulantid magaciisa baro, mar walba oo aad isku timaadaan oo aad sheekaysanaysaan magaciisa ugu yar. Waayo magacu waa kelmadda ugu macaan uguna muhiimsan ee qofka laga rabo in uu adeegsado si uu qofkan u soo jeesto. Luqad kasta oo adduunka ah waxa la isku raacsan yahay
in qofka marka lagu yeero magaciisa markaad la sheekaysanayso inuu dareenkiisa isbedelo. Tanna waxay sare u qaadaysaa danaynta iyo dhageysiga qofkaasi. Intaas waxaa keenaysaa in qofku adiga kuu soo jeesto oo had iyo jeer ku dhageysto oo had iyo jeer uu maqlo waxa aad leedahay oo had iyo jeer uu siiyo dareen uusan dadka kale siin. Marka waxa ugu muhiimsan waxa ay tahay oo sheekada qodobka sirta labaad ee buugga ku jirta saaxiibo kasbo ay tahay inaad mar walba qofka markaad la kulanto oo aad la sheekaysanaysid aad magaciisa ugu yeerto, sababtoo ah weligiis ma ku hilmaami doono. Sirta saddexaad ee buuggan ku jirta waa sida dadka lagu soo biiriyo aragtidaada. Adiga waxaad rabtaa aragtidaada inaad gruubka dhex keentaa rabtaa. Marka sidee ayaad aragtidaada dadka ugu dhex biiri kartaa? Haddii aad rabto inaad dadka ka dhaadhiciso aragtidaada adigoo abuurin diidmo, habka ugu habboon waa in laga fogaado dooda furan, sababtoo ah heer dooda ay gaarto waqti bixin badan iyo runtii juhdi badan iyo dhibaato badan waxay keeni kartaa in dadku isnacaan. Mar walba ixtiraam ra'yiga dadka kale, qofka kale. Marnaba si toos ah ugu oran waad qaldan tahay. Haddii adiga aad qaldan tahayna qiro oo si degdeg ah oo kalsooni leh oo daacad ah. Taasna waxay meesha ka saaraysaa carada dadka kale. Markaad sheekadu ku bilowdo si saaxiibtinimo leh oo aad raadinayso waxyaabaha aad mar walba dadku kugu raaci karaan, waxaad furaysaa maskaxda qof kale si uu kuu yiraahdo haa waan kuu raacsanaa doodaas. Marka hadalka arrinta ugu muhiimsan waxa ay tahay marna qofna aragtidiisa ha ku dhihin waad qaldan tahay inta doodu ay socoto. Kaliya aragtidaada ku soo biiri. Haddii aad rabto qofkaasna waxaad dhihi kartaa Axmedow aragtidaadu sida ay tahay aniga uma dhaheene si kale ayaan u dhihi lahaa. Laakiin qodobka ugu xun waa inaad qofka ku tiraahdo waad qaldan tahay, jooji taas. Qodobka sirta labaad ee buuggan ku jirta waa hogaaminta iyo isbeddelka dadka. Hogaamiyaha dhabta ah wuxuu hadalka ku bilaabaa ammaan iyo qadarin daacada ka hor inta uusan tilmaamin qaladaadka. Marka xigta qaladaadka dadka kale waxaa loo tilmaamaa si dadban oo aan toos ahayn si aan loo dhaawicin sharaftooda. Hogaamiyaha wanaagsan wuxuu marka hore ka sheekeeyaa qaladaadkiisa ka hor intuusan kuwa kala naqdin. Wuxuuna adeegsadaa su'aalo dhiirigelin ah halkii uu ku bixin lahaa ama halkii uu sheegi lahaa amaro toos ama uu bixin lahaa amaro toos. Qaybtan waxay si weyn u adkeynaysaa in qofka loo ogolaado inuu ilaashado wejigiisa iyo sharaftiisa iyadoo la ammaano xitaa horumarada yaryar uu sameeyay, loona yeelo sumcad wanaagsan oo ku hamiyo inuu dhowro, taasoo ka dhigaysa mid si farxad leh u fuliya wixii aad ka codsato. Mar walba qofka hogaamiye waxaa laga rabaa inuu yiraahdo anigaba haddii aan qaladaadka inii sheego waxaa ka mid ah noocaas iyo noocaas, sidaas iyo sidaas, idinkana qaladaadkiina waxaa ka mid ah sidaas iyo sidaas. Marka waa inaad adiga mar walba aad ku bilowdaa saaxiibadaada si aad ugu noqoto hogaamin. Waa inaad adiga qaladaadkaaga sheegtaa ka bacdina kuwooda aad sheegtaa. Ugu dambeyntiina haddii ay noo soo gunaanado buuggan oo aadan waqti dambaba iskaga bixin, falsafada nolosha ee buuggan ku jirta waa mid muhiim ah. Buuggan ma ahan kaliya xeelad maskaxeed iyo farsamooyin dadka lagu soo jiito ee waa falsafad ku dhisan ixtiraamka dhabta ah, naxariista iyo fahamka bini'aadanka. Markaad noloshaada maalinlaha ah dhex geliso mabaadi'dan hadda aan kuu sheegay, ma heli doontid oo kaliya saaxiibo iyo taageerayaal, balse waxaad helaysaa nabadgelyo maskaxeed, kalsooni kuu horseeda inaad noqoto hogaamiye dhab ah oo hiigsanaya meel sare, sidoo kalena saaxiibadiisa aan niyadda ka jebin. Marka mar walba ogow, mar walba ka warqab, mar walba la soco, muhiimaddu waa intaas. Ugu dambeyntiina buuggan saaxiibo kasbo haddii aad rabtid waxaad ka helaysaa suuqa, meel kasta oo aad tagto waad ka soo heli doontaa. Magaciisuna waa saaxiibo kasbo. Mahadsanidin.